بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عاو فرح سنة إنه يوسف عن وجود عي برنامج كيني أها عروض بوجاكتا مجال لندن مركز الوصول بندقي بوجاجات وبدن وحنا كسوق يبغى قار كم يدا قرياش الصومالية دقن مجال لندن وسنة كسد حاد أنا برنامج كان سمعينه هنا هدي إنه نهاية أكاديمية قبلت كاب الصومالية يو هدي نقول هذا الصومالي بين هذا يعني فرح سنة يسوي برنامج كان مدعي وحنا رجينا إنه الموضوع برنامج مفهم سنة توسع أو صعدة سنة كسر الوصول بندقو مجالوين كل دون تلك إنجليز كهدو إلهي دون waxaa kaloo xusid mudan in akademiyada goboleedka Soomaaliga ay u taagan tahay horumarinta afka hooyo iyo daryeelka afka hooyo fahamsan tahay waxa uu kiilo ka socdo akademiyada ay joogaan ee dalalka kala duwan ee caalamka sidoo kale waxa ma fahamsan tahay bogaadin mudan fahamsan tahay in dadkii ay dareemeen muhiimadda uu leeyahay afka Soomaaliga waa haybteena ma fahamsan tahay isku garanno ama sumad soo ayuu noo yahay sidoo kale Soomaaliga waa astaanta مفهوم ستة من المدة الصومالية قاسم هلولي هسي وقادي جري وحاكم إذا مفهوم ستة مفهوم ستة ودي جري الصومالية توصل كذب مفهوم ستة لقدات واحد هو مفهوم ستة الردين واتاكو كملة كلا تجيله تصبحوا عديني إن مفهوم ستة لقدة يحل متهاي مفهوم ستة سلوك الأوروك إسرائيل مفهوم ستة خذ كيس الشناد وقوها قريتان كأفك الصومالية marka waa garan kartaa af Soomaaliga mar waxa weeyaan hay'teena aan isku aqoonsanayno mar waxa weeyaan astaanta midnimadeena ma fahamsantaa marna waxa waa astaanta wadaniyadda marka waxaan rajaynaynaa inaan kulligeen qayb ka qaadano yar iyo weyn oday ciroole macallin iyo maamule marooyi mudan inaan qayb ka qaadano horumarinta iyo daryeelka afka hooyo hal kulligeenna waxa weeyaan diilka afka hooyo hal abuurkiisa sidoo kale waxaa jirto cabsida ugu weyn waalidiinta Soomaaliyeed ku soo socota waxa weeyaan caruurtooda inay lumiyaan haybta af Soomaaliga ama haybta Soomaalinimadana waxaa saldhig u ah afka hooyo ma fahamsantahay dhaqanka waxaa sida ma fahamsantahay afka hadduu dhumo dhaqankana waa dhumaya ummadana waxay noqonaydaa ummad aan lahayn hayb masiiwana ma uu dhiman isagoo walina ku jirta lagu tagayaa gabadh meesha qashka ku qultay oo iyada lafteedu duruufaysan oo jaariyada ayaa helaysa iyada la soo dabaaranaysa duruuf adag oo maraya dabadeedna aakhirka muddo markuu joogo gabadhii reerka ay la joogtay ayaa wadankii ka baxaya isagoo diidaya inuu raaco reerka waayo hooyadiis uu yaqaan iyada hooyo ahay halkaas markaa inay duruuf la soo hadana uga bilaabaysaa safar bay hooyadii galaysaa iyadoo duruufaysan oo reerahoodii dhul kale jira ay dhibaato looga soo sheegay dabeedna shil baa jidka dhexda kaga dhacaya way ku dhaawacmaysaa isbitaal baa la keenayaa hadalkii ugu dambeysay ee ku tiraahdaa wuxuu noqonayaa markii naftu ka baxaysay hooyada ma ay xumaan dhan iyadoo uga sheekeynaysa wixii oo dhan halkaas ilmahaasina ku sooxaya sheegadaasay ku saabsan tahay inankaa yar markaa hajir buu gelayaa kudaafadii uu ku dhashay amaan la geeyey uu dib ugu noqonayaa halkaasuu nolol ka bilaabaya isaguna duruufo adag ayuu soo marayaa isma dhiibayo argagixisadan nimankaa wuxuu taa ka mid noqonaya mararka qaarkood waxyaalo badan buu marayaa calaa kulli xaal cid wanaagsan ummadda lagama waayo inankaa sheekadiisuna saas bay ku soconaysaa marka saddexdaa buug baan qoray aad iyo aad baad umahadsantihiin magacaygu waa maxamed cabdi cayna waxaan qoray buuggan aad u jeedaan oo ah ciil iyo cafis ciilku waa waxyaalo fara badan oo nolol ahaan anoo yar oo aanan filayn igu dhacay xawaali 20 jir arday jaamacadeed anigoo ah ayaa maalin galaaska waxa igala baxay NNST Xamar Banaadir kadib halkaas waxaa ka bilaabmaysa sheeko dheer oo aad u xanuun badan oo ahayd wax aanan filayn oo torjar leh oo gaajo leh oo maxkamad intii lagu saaro dil in lagu xukumo ama xeeraalintu dil noo qabsatay at the same time waxaa dhacayana aan ka ahaa total innocent waad garanaysaan marka xarunka ay leedahay ama dhibka ay ku keenayso familkayga gaar ahaan hooyaday Allah u naxariistay oo mararka
qaarkood ay dhici jirtay markay xamar aado inay xaafadaha ku dhumi jirtay sababtoo waxaa wiil keliya dhashay waxyaalo badan baa jirtay intaasi la ilmay qabiil kuma saabsano buuggan wuxuu ku saabsan yahay tiirarkii xukunka ku hayay dowladdii kacaanka dhaqankoodu muxuu ahaa dhaqan qof oo Soomaali ah oo runtii buuggan markuu akhriyo boqolkii 90 dadku ay leeyihiin wax nagu cusub inay Soomaaliya ka dhacday ayaanu buuggan ka aragnay waxaa ka mid ah intii qol lagugu xiro kaneeca miirana oo kulul aad u kulul oo aadan shaar gashan karin in markaa 4 beri 5 beri cunana lagu diido oo afkaas aadan cunno afkaas saareen isqusha markii lagu sii daayaba biyo cabi jiray biyahaasna isla markiiba kaadi bay ka noqonaya markaasaa lagu soo wadayaa 4 beri kadib xafiis baa lagu soo gelinayaa miis weyn baa waxaa la dhigayaa nooc kastoo raashin ah hilib babaay moos bariis digaag kalluun waxaa lagu leeyahay waxaasoo raashin ah adigaan kuu haynaa laakiin waa in waxa aan doonayno aad qirata oo waxaad qiranayaa maxay dad aanan aqoon weligii aan arag intii magacee lagu aqriyo baa waxaa lagu leeyahay dadkaas waxaan kuu sheegayno ku markhaanti fur haddaad saa samayso raashinkaas adaa cunaya markii aan diidana waxay noqotay kuwa lacso dhareer baa iga soo daatay 4 habeen 5 maalmood anoo gaajaysan oo afka waxba saaran galaas baan ku jiray subaxda la soo kaxaynayo jaamacadda dhiganayay surwaalkii iyo shaarkii aan galaaska ku jiray baa dhar ii ah habeenkaas baa haddana waxaa la ii bilaabay torture 5 habeen anoo 4 habeen anoo gaajaysan waan suuxayaa marka waxaan hurdadii ka kacayaa salaada subax markii la aadaamo anoo meel kasta ay xanuunayso ciiddii xeebtuna ee jirkeyga ka buuxda marka waa buug runtii marar badan ilmo ka keenaya qofka runtii waa taariikh mudan in la xuso anuu markaa waxyaabaha taariikhda loo xusana waxay tahay in wax laga barto wixii waa dhaceen laakiin berri inaysan imaan ama cidi aysan gacan siin ama laga digtoonaado khaladaadkii dhaco layska saxo laakiin waxaa muuqata uga waan akhriyey markaan akhriyey kadib waxaan barbar dhigay waqtiga uu ka hadlayo waqtiga maanta la joogo dhacdooyinka uu ka hadlayo kuwa lamid ah ka daran baa socdo oo dhacaya caadakana ku sugannahay hadeertana ku sugannahay dhacayaan kuwa samaynayana cashar bay u tahay waxa uu xusayo oo isla berri marka la gaaro ayaguna waxa ay tilmaamaha ay muteen kuwii hore u maray ayaguna mudan doonaan hadduu ilaah yiraahdo marka waxa ay mar walba muhiim u tahay in la xuso buuggaasi waa sida ama taariikhda oo dhanba waa nooca weeye anigu waagaan wax baranayay waxaan ku takhasusay oo diblooma ku qaatay sharciga waxaan ka shaqayn jiray wasaaradda garsoorka waadaba waxaan bilaabay markii shaqada iga dhammaatay oo pensiono galay pensionaata noqday yaa waxaa igu soo dhacay inaan taariikhda wax ka qoro taariikhdan aad u daday 3 sano ugu dambeysay waxaan akhriyay inta buug oo qoray 3 buug oo qoray Maxamuud Ibraahim Xaaji oo galabta halkan ka jeediyey
وأخري بوقت محدين عيد وأخري بوك حسين خليل حاج جامع وأخري بوك فرح وأخري بوك محمد عبد العينب هدام وضع محمد عبد العينب اسمنا وقون هل كانوا كبرتي لكن أبيس أخاني يفهم الكيسة أنت عسكرية ما أنا وأنت لبضع سنة كان أخري لكن وحاجرة هدي مثل لقى مثل كفارح بروفيسور فارح مثل لقى ريبو أنت كله بوقت أخري في الصومالي بقرني وحاجرة بوك كله أن أفف كلكو أخري أم إنجليز هنقدر أم إيطاليان هنقدر أم عربي هنقدر أم كو أخري أجفتا مرك أخرسك ما جسد كجوجا مد بوتا سنقرنا مد ككله وحقوق هذا لايو أن قيمة وين له المرء مدي محمد عبد العينب هذا مغليسين محمد عبد العينب هذا دو مريو أما يان هذا كهذا أنت أو شيء أيو أنتك أو شيء أيو ماشى كل تري لباتي وهذا عن بدن كود أقان استغل الموسيقى وقاركود والله شيء واحد يراه كان يدقيني إندتك إذا وحنو يري ما هو يسألنا أنا يسوق بدنا وحنو يري دتكاس إن أركو أما خبصة أما أن دبقلو أما وحي يقص بيان أن كلها دو مرة بو هاي شيء جنينا وحي يقول عيوة ماشي وأكو قري إنتاز أوجاده waxaa jira hadda buug aan halkan keenay iyo waxaan ka qoray madaxweynihii hore oo Soomaaliya ninkii ugu horeeyay Aadan Cabdille yaan xoogaa waxaan ka qoray noloshiisii iyo habdhaqankiisii xagga siyaasadda waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa dadka yana in kaligiis ugu fiicnaayeen inta madaxda soo noqotay Soomaaliya kuwa ugu hufan oo ugu shaqo jecel oo ugu magac dheer oo ahaa marka waxaan bilownay inaan wax ka qorno dadkii madaxda dalka u ahaa jiray kelmadaas way caam laakiin meesha waxaan u tagay oo u fadhiyay buug baan qoray buug waxaa la yidhaha xariga adag baa la yidhaahdaa laakiin social media dadkii kamaradihii badnaayee wada joogay may soo dayin ma garanayo hargeysa buug la siistay $100 baa la siistay buuggiiba buuggaa qasradii lagu qaado mooyaane buugga meelaha ma soo dhigdhigo waa buug aad u cajiiba wax badanaa ku jira siraa ku jira siro aan naloo sheegin oo in yar un ay og tahay intaana waxaan u malaynayaa intaa og waa in gobolkooda sii dhacay oo dadku ma garanaya 99% sirtaa ma garanaya sirtaasina waxa weeyaan waxaynu isla dilayno waxay la qaxayno waxaynu isku caayayno waxaynu dadka aynu magacyo ugu bixinayno waxyaabahaas oo dhan ayuu koobsanaya ka qofka faqiirka sida uu sheegay walaalkay waa qof aan waxba akhrin اقرأ أخر إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس تنزيلكم نقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وحنا صوت الشيء بالله سبحانه وتعالى كتاب يذكر الشيء يذكر واحد المرء كتاب يعني لقد أنزلنا إليكم وإلينا وإنك كتاب فيه ذكركم كيف تتعاملون
كيف تتطورون؟ كيف تكونون إنسانا مستقيما؟ وحوى ما فرضنا في الكتاب من شيء. إلهي سبحانه وتعالى كتاب وحي يعطيكم كتاب وح كسو جرا وحوى البهور مركن عاملكم يمكن قاري أي الله يعطينا كتاب يمكن جرا لأن إلهي سبحانه وتعالى يحبكم كتاب. هذا هو الكتاب. تجي نقول يودس بورسنا يوحنا تجي دخترك ومسلم دخترك ومسلم وهل مليون من حالا يمتلك هي كتاب عام قري إن أنت عينا هذا السيرة إذا صار إحنا شفت الجوركي بحكم هذا الجوركي بالنص ديار هل مقرأ قرآن كم فسرع أيكو آخرني يلا يجي توجسين أو تلجوركي بحكم هذا الجورك صوت ديار أو إن أنت منك هو أكثر الجورسك كتصوت ديار لكن اللي بحب في الدين أو ديارني أو نحنك هو أكثر الجورسك أنا فقير عندي. لبوي كهر بمرحلة كذا حافظ أهيل وحبرشة السنة كلا صوت عفاي واحد كأدنى أواج كمرحلة بهاي دور شيء كأدنى مرحلة دي بالوني واحد كذا لبوي كهر بهاي مجال سكول متكملة أي من تدك أقوى بدل مركي أشياء كلاجات واحد هاي الصومالي تدك نوع سكول كاسو كله دتك waxaan soo qaatay warqadii inaan wax ka qoraayo xaafadda Itaala dadkaas haweenkaas la siinaya abaalmarinta konton qof way dhamaayeen konton qof aan marka fiirinayay markaan warqadan la siiyay waxaan akhrinayay dadka Soomaalidu waxay ahaayeen 8 ama 9 majaal konton qof 8 ama 9 kaasi هل ولبا كوتشي سيدة كانت معايا سمعت تدخل بدل قوي تكر أشياء بالبناية مدو من لبا كوتشي سجال كاسقف الصومالي سيدة بنا مركا أريا أي حصة يسوع ويلاش إلو سجيس وواحد ربي لو كهر راس أنا هنا وحكبر سمعت أنا يوم بروفيسور عبد القادر رومي وحن كملنا هاي كودي قال هذا كده ببلاد كأسمانجا كاسو مكان لو كوني صدقتهم كيبو أساس السوحة وحنا كشقينا أنا وحوي يعني وهي تأفكار قرآن كيسة ديكشنري كيسة نحوي كيسة قبيلة كيسة سودان كيسة وحنا كوبا سنة كودن وحنا كوضلنا حنامو إما كمركبو رسي لا أساسي ورتجيبوتي كوا حفيز كهيدكوارترز بوها أي مكان شو يهي لامو هنا لندن لامو هاي كم تاعي سويدن لامو هاي كم يهين نوروي أمريكا مكا ما شاء الله وندلنا وحويان كودي قا استو حلقاضي إنه ما تدي كوهيري عفوا تامر كان كي مابدو أنا هذا لندن بانهاي كن أصلاً كيل أو كن يسهل واحد تشتري فرين يونسكو كسر بحبي يونسكو بحبي United Nations كده كده ما نتريه education كسافن تاسو أي شيء إن ما أركتها الصومال ويا شيء أستعمه هي أفمر كده بالجاي أستعمه أفضل بالقاعي أيوة الصومال ويا شيء الصومال من واحد دنيا إن أنا إذا حسوسيو تعرف ليه تعرف أرفع لروكم منان سنة أيوة ليه ولاد كيسة ما قرنا الساعة دليل يو يعني وحقيقة أنا عين شيء أقول إنه ما تقدر شيء كيستعمل كقرآن يعني سمع المهم 100 years كوتشري أو بقول سنة كوتشري يعني وحي مودي يعني إنه يوم الدو بيننا هاي تامر كان كي ما دو الصومال بقول هي أفريقيا مركي لدمعي إن ما تي لهم مريا أفريقيا وحلي الحالة دوت الصومال بقولها أفريقيا صوم تسقط أنت يعني وقياس كان في نيجيريا يمكن إثيوبيا تشاركين أو كلا عدي أديكتان وحلوها لا أففر أبدا وقلالي من بقى نيجيريا من وكل تدون أيام برادا يعني محمد برادا إثيوبيا I think من سديت مية بحث صلاة يابو أفف بدن بالله كهذا أفف كاس سبب الله دارم كرياف كيلو كبنها وحلو سمي كرايتيريا الصومال مرور بكرايتيريا كوتشرا أيوها after borders gap كيف بيوية سواء ما يقدر سواء قيمة ألف فربنا بقوليه لكن عبتهم كم ورهايان
وكان بحيدين قرحية أنا وحن هاي الحمد لله واجي هاي وكل شيء واجي وكل طريقة صيّة شيء وحن هاي قف الصومالي وشاي الصومالي وحن هايستانو ملاها هترس هذا أفكر إنه كان إنجليز كدفت لهم أنا الصومالي كفيا كان أقرح بدن كحركة بدن أدي هصيّة شيء ما أنت في إنجليز كي بعدين كهيست واجي في إنجليز هو وابو الصومالي ما كان برضه يقول سجى وحكى برانيا dadka poetska gabayagaynu gacan ku nahay gabayada ingiriiska ah ee af Soomaaliya turjumadiisa ka qayb qaatay poetry translation center ka hadday yara gashaan midna ka fiirsan iyaga mucjiso yaaba oo yiraahda Soomaaliga qalinimadiisa waan ka baranaynaa annagiiba af ingiriiska ku tayaynayna afkeenu afka saa qiimaha la weeyaan haddana caruurteen ma oga looma la sheegayo in fact waalidku marka aan ku leeyahay 2009 waxa la yiraahdaa saamihii buu afku yeeshay Soomaaliga uu yeeshay double go ayay aan horta istaageen in not on my watch marka saa waxaan bilaabay organization la yiraahdo galo maxaa tahay daadah buu ku bilaabay daadah Soomaaliga buu weeyaan marka si maartay sida afafka loo bartaa oo grammar ku salaysan ayaan si caawin u bartaan wasan afka markuu double go ayo waxa kamid ah istaamihiisa marka aanu jiil kale u gudbin waxa ay markay haysta sababta ay conundrum kana ay ku jirna waxa weeyaan weyneen gudbinay unfortunately waqtiga fariintaasi ay soo baxday aanu horta qof baan waxaan isa saaray xil ah inaan masaajid tag magaalooyin tag ilaa Manchester ilaa waan socday anybody dhageysanay waan tagay waan soo inaan ka wargeliyo idinka haya afki waalidkan soo qaxay idinka afki haya canuurtiina at least waxba idin qasgareynaya وجودية. طبقا إنه سكون ميت أو Soomaaliga والموريتانكيسا أنت Soomaaliga حيسي سيء أنت ولك هاي اللبضة وارد السلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن زعلا هنا هذا القيد ده Soomaaliga يصير له بهرة من إنها لكن وحن كمان عندنا بعدين قبل قرص هذا يصير برنامج النيرة سوق قرطة تقرير شيء يونسكو قرطة وعربي نقول ترجمة Soomaali نقول قرن إنجليش نقول ترجمة وقال مقدس Soomaali فوضى حملنا لبض كوني عشان يصدقون قصص وكله أنا خريطة ذكر بحيسو واللواعي هذا قصص أخرى كذاك نقول لك طيب أنا أقول حنا نروح عن هاي تذكر سقوط حرجية برشاد بريد ما عندك برشاد قف هو كمان كوا حنا قارئ وجاي واحد اللي هذا مكان النساء theory of the learning according to the classic Islamic thought ما قاعد أسأله عيب لازم تعرف إنه عصر كلام أوكي Soomaali دي هي اللغة ذات تسد النقطة political أنا بعجوب بيصيروا السورية هاي وصعدوا أوكي Soomaali دي بدي جوتانا يعني ده بدو يعني وأنا كوريس عادي كوريس Soomaali ده نحن وذوقنا هنا هند المسلمين الحمد لله رب العالمين إلهي بإنه لما ماذا سنحن شكرنا أوكي قف اللي يرد الصومالي أما أقويه بدن الصومالي وحا كم مقن ثقافة يكذر الإسلام كم مقطوطة تطلع مع ساولة هاي وحا ليلة هذا وراح نقولي فاسأل به خبيرا هذا ترى وهو يتسود الحاجات إلهي بقولي فاسأل به خبيرا ونقول لو يسود صلى الله عليه وسلم برشاد إيه وحبريدا بيجي لما كمان ولا ليه بقولي وكيف وحكاه ليا dadka dhalinyarada ah ee ama ku dhashay ama wax ku bartay Soomaaliga ee Muslimka Westernka dadkaasaan la hadlayaa kalama hadlayo Soomaali kaliya waxa kala hadlay identitygiisa abtirsiintiisa qofku inuu Muslim yahay waa inuu Soomaali ku faanaa tan Soomaali nahay boqolkiiba boqol muslimiin bayna faana laba shay marka la inaga fiiriyana اسمه قبنيس اللقدنا إلهي هذا ويصلي إلى هاي إسلام كان إنك هذيك عرض الله وهذا هذا الكوك ويلي آد ويتبت آد إنه قفص مالها ويليرو اللي يراها من قبل يرو اللي يراها سوكر السيدة اللولب ما عرف كبني آدم هو يكبح سطح فعل يعني كإسلام كمان كبني آدم يكبح سطح سوكر ميسي وحاس أو درس كما قبل وأن أقنعه وجاي منك وحان فوكس كسارية
abtirsiinta dadka dhalinyarada ah ee gabadh iyo wiilba leh ee thaqaafada westernka ka dhargay ee aad ku yaqaana jaamacadaha dhigta inaan u ifinno oo toos ugu saaro adiga oo muslima adiga oo Soomaaliya adiga oo westerna waxaad leedahay kajarkan aad hadda haysa kajar u dhigma ayaad leedahay oo muslim baa tahay muslimkuna sidan uu bartaa sidan uu bari jiray 800 oo sanadood ayuu hogaami jiray adduunka islaamka muslimiinta ay leeyihiin iyagoo minority waxaan qisay baan sheegay فرص ودك وإلهي بالغلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون مركب مسلمين فرتين واحد أول واحد دولتي انت هالأكيد وقرأت سوى شيء أود مانجمنت كي فاينانشال كي بوليتيشن كي اللغة الفارسية أو اللغة هذه الحلقة إلى هذا يعني اللغة العربية كأتكاوي مثلا لغة الرومان اللغة العربية كأتكاوي تي مسائل في العراق وكاتكات تي هندي وملايين كذا وكاتكات لكن اللغة الفارسية إلى يومنا هذا اللغة العربية وكات كام كلمة نمكن سيدا أمرك فرتين مسلمين تي أو يرو ربادية أو حكي الدون إن ولي قد بكو فكرين وحاقو أتكات أمرك ويسي لو معمول لها عقل المسلمين تستعمل فين هدينا إنه بعقل إنك شقيسين هدينا ندي سوغن مقنن هدينا حسابتين واللغة إنه الأردين أين المعنى أسمينين أو إن عقل كسلينين هذا محمد سبحانه وحي أقول هذا النمون كي عرفتها إسلام كودي عقل فارسي قريقاتان إن الشيلان سيكو قاتل اللغة فارسي حرطوها لبرتين يقول لي لي قبل يروح عربا لبري دك فارسي هانا اللغة عربي أيام لبري ميكسي بعد magacay waxa la yiraahdaa Sikriya Ismaan waxaan ahay qoraaga buugaas waxaan yiraahdaa Boojin waa novel sheekafaneed Soomaali ah waa wixii ugu horeeyay oo af Soomaali ku qoro waana wax kaliya oo qoray ilaa hadda halkaas buugan wuxuu soo baxay sanadkii hadda soo dhaafay bishii 3 2023 wuxuu soo baxay markii ugu horeysay magaalada Muqdisho wuxuu noqday buug aad loo soo dhaweeyay sababtoo ah wuxuu ka hadlayay xilli ilaa hadda wax sheekafaneed ah aan la qorin waa 2000 ilaa iyo 2002 uu ka hadlaya xoggiisa xamar waagaas waxay u kala xirneed adiga lix hogaami kooxeed u kala xirneed iskuma gudbi jirin dadba meesha deganaayeen ayay ku ekaayeen marka way adkeyd in dadku maaragtay ayadoo magaalada degan haddana ay is arkaan magaalada marka xilligaas shaqooyin badan kama jirin inta badan hooyooyinka iyo haweenka shaqeyn jiray abayaashu inta badan maaragtay shaqo badan ma hayn waxbarasho fiican ma jirin xataa dhowrka cunug iskuullada dhigata xaafadda waxbaa laga sheegi jiro waa lagu qosli jiro dad waxba kaayeen nooc kale marka waxyaabaha la yaab kale ka mid tahay xilligaas ka jiray dadka magaalada basas waxaa ka shaqeyn jiray maaragtay loo kala raaco marka xilligaas anigu waxay la noqotay marka xilli la yaab lahaa qofkii fahansan wax ka qoro ay fiican tahay marka sheekada xilligaas aan ku sareeyay maaragtay markuu buugga soo baxana wuxuu noqday buug maaragtay si fiican dadkii ay soo guteen waxa ka mid ah waxyaabaha marka aan xiisaha ila leh buugga markuu soo baxay aad baan waxay siin jirnay meel walba geyn jirnay maaragtay laakiin dadku waa dhageysan jiray laakiin maaragtay nagama hoos qaadi jirin macnaha laakiin buugga markuu soo baxay ay gacanta ku dhigeen ayay ka isgaarsiiyeen muddo yar gudaheedna buuggii ku dhammaaday tusaale ahaan waxaa laga casuumay inaan meel gobol ah magaalada Soomaaliya inaan geeyo soo bandhigo gobolladii kale ayagaa soo dalbaday inay buuggii magaaladooda lagu soo bandhigo soo dhammaaday gaalkacyo ayaga xamar ka soo qaatay keensaday casuumay waa ku qabanay ilaa garow waan tagnay waa ku qabanay buuggii wuxuu noqday marka buug dadku ayagu asaga iswado maaragta maasha Allah dadka marka review ka baxshay waxa ka mid ah muhidiin oo kale oo anoo gaalkacyo joogo markaas aan gaalkacyo ku soo bandhignay soo wacay marka wuxuu ugu yiri buuggaaga niyahow waa akhriyay laakiin ilaa hadda waa aamin weysan in aan barto marka wuxuu yiri markaan buugga cabaar akhriyay waxaa fi shamsoo gaalka dhigo ninkan waxaa mas'uul mas'uul qorin macnaha sidee marka si fiican oo wax magaalnimo u hadlay laakiin waa hadal aan awal mar oo soo gaaray sababaan dadka Soomaaliya jooga waxa ma qariyaan waxa runtii dadku sheegaan marka wuxuu yiri anoo adoo xamar xamar ku dhashay xamar ku dhashay xamar af Soomaaliya ma tuurno moogta adoo xamar ku dhashay
haddana 20 sano Yurub deganaa Soomaaliga aqoonta waa marka ilaa ay arkaan waxaan farxad ilahay inaan kasoo qayb galno caawa xafladda bandhigga buugaagta Soomaaliyeed ee lagu qabanayo White City waxaan wakiilka ahaa qoraaga buugga la yiraahdo maalmaal iyo buugaag kale oo badan oo ay ka mid yihiin gabar noqomeedba buugtan soo saariis wuxuu degan yahay magaalada Salzburg Austria waxaan aad ugu faraxsanahay bandhiggii aan naloo qabtay buugaagta halkan waxaan isdhaafsanay aan ka baranay casharo badan oo wanaagsan waxaan ku faraxsanahay walaalaha soo qabanqaabiyey anaguna waxaan soo bilnay buugaagtii si fiican ayay noogu dhacday magacayga waa Dr. Naadir Cali sida u dhahay waxaan ahay Dr. General Practitioner Family Physician oo London waddankan Ingiriiska waxaan ka shaqeeyaa NHS-ka waxaan haystaa private clinic oo ku taala Old Street maanta waxaan rabaa inaan kala hadlo caafimaadka as sida ogtihiin caafimaadka iyo education waa power sida the previous speaker said education is power and health is also another thing that's so important that we need to all look after our health diinta wayna dhahday bodigaaga iyo caafimaadkaaga inaad look after garaysid so preventative medicine waxa la dhaho or sometimes aanan NHS-ka laga helin sometimes aan rabnaa inaan Soomaalideena bulshada u sheegno preventative medicine waxa waaye caafimaadka intaadan jirada kugu dhicin inaad ka hortagtid so sida inaad yearly blood test inaad samaysid exercise weight loss diet looking after your own general health avoiding smoking and other kind of alcohol which we don't do in our culture alhamdulillah so waxaan rabnaa inaan sameyno program anaga isaga oo community center ka ah in aan hooyooyinka iyo nimanka xitaa caafimaadkooda sidee uga hortagi lahaayeen jirooyinka so blood pressure check health check inaan sameyno exercise classes which you already do anyway and diet and nutrition oo dadka dhan ay imaan karaan xaafadda degan ama xaafad kasta ay ka imaan karaan ilaa konti kow sano ayaan ku jiraa hawlada waa beri dadka maanta ka soo haray oo yar aan ka mid ahay waana nasiib daro maanta aad baan u xumahay aan weligay baan ma sheegay waxyaabaha maanta qaar aan inta ka soo gaaray kow muna waxay tiri nin faqiir yaa la guursaday diinteena islaamka waxay tiri nabiga wuxuu yidhi ninka faqiirka ah ama naagta faqiirka ah haddii la guursado ama isguursadaan ilaahay wuxuu yimaadaa inuu dhulka furo soma good gabadhi kale ku soo artay waxay tiri huwa runteeda waay markee Soomaali way kala baxday nin la arka gabalkiisa oo jecel yahay loo amaano iyo wixii lagu soo koriyay taasna waa ceeb markee Soomaalida taariikhay leedahay taariikhdeedana aqoon u leh hadda kan soo hor 20 sano dawlad la'aanta sana kasta waxaa lagu qabtaa af Soomaali يا إيش شيء كان سنة وحصل شيء بعد أنتي أفرت المسؤول محمد سياد برا يقول البوق فلان على مسؤولة أدور نحن وقرا سنقول هذا ماتي يا إيش شيء كان كو صومال وحد دخل ولا أنا قول يرجلي يا شيء كان ما نلا قربا حتى صوت حي وهي أسئلة قربا لو أمته قربيهم أما قبل كيسة أما واحد كيسة marka waxaan jeclaan lahay buugtan fara badan oo la qorayo horta Soomaali ninka Soomaali faraaq u haya buug oo 10 page inuu akhriyo ma ana waxaan jeclaan lahay ila baarkiisu hebel sidoo ay qorba qisas inta soo qaada inuu ku daraasan wala markii la sheegay waxay ila kii kala loo dhiba ila marka buug hada fi dadka buug qora هنجز إلى وحياة كل بوك ويقدر يصوت حياة حمل جدوك صجرة إنجليز كانوا بنات أنت بوك خرج لجلون كل فين أما جحال أما خبير نحن أما تلاقي أو سكيا أو كل دي برعات من أغنى وين بره حفل تصور إيماننا مركب حرام أنا جحال هاي قدي على سمايو
runtii aad iyo aad ugu bogay walaashay kelmadaha Zainab kelmadaha ay tiri oo ku saabsan carruurtayada especially markay yaryar yihiin 3 jir ilaa 9 jir waa waqtiga kartuunka ama waxyaalaha carruurta aroortii loo daaro hooyada ay ku maaweeliso markay raashinka karinayso taasoo aan u baahanahay ayadoo Soomaali ah carruurtayada oo ka sheekay dhaqankii ka sheekeynay geedi يعني بيه بديه إن هلي كرنا وتيفية الصومالية أن داونا أرورتي أن كشن كرنا سي أمد كيجا ولا جام قارن ولا برتان دخل كيجا يدل كيجا يدين تنا وحيتاي الصومال اللي بدو حيتاي waxaa sharaf inoo ahayd in aan carwadiisii gobonimo ee aan u soo afxirna carwadii bugaagta aan ku dhigaynay White City qabanqaabiyaha weynka ahaa qoraa sare diin Xuseen Ciid intaa kadib waxaan rabaa in aan idinla wadaago buugayga oo aan qoray sanadka hore farxad iid ma aha oo ka mid ah cawada bugaagtii lagu soo bandhigay halkan in aan macluumaadka ku jiro qaar ka mid ah aan kor idinkaga maro buugan sidiisa waxa uu ka hadlayaa farxaddu in aan aysan ahayn wax suuqa yaallo oo ay dadku soo iibsan karin farxaddu waa dareen sida waxaan ka soo horjeeda murugada ma la soo iibsadaa waa maya farxaddana waa sidoo kale buugan waxaa maaragtay hormuud u ah oo uu ku socdaa nin la yidhaahdo raage kaasoo ka dhashay qoys sabool ah haddii aan soo koobo qisadiisa wax ay ku soo gabagaboobaysaa ninkii saboolka ahaa oo taajiray oo haddana dib u faqiiray marka ilaa aad adiga gudihiisa akhrisato oo aad ka warkeento ma ogaan kartid waxa ku jira buugga sidiisa barnaamij waxaan u qoray inuu arrimaha qoyska wax ka bedelo maadaama qurba joogtii dadkii ay ku wareereen arrimaha qoyska aad ayaa nin aqoon-yahan oo iska oday iska gudmoodo baa tahay macallimiintii hore baan ahay Sweden macallin baan ka soo noqday kala badan waxbaan u qoray laakiin faani kala mihi midun baa yar adkaynayaa dadna aan jawaabay waqti uu hay waarin waxyaabo xasaasi ah oo meesha la taabtay Soomaaligu inagu Soomaali hadaynu nahay afkeena ma qiimayno dad badan baa jiri afkeena qiimaha uu mudan yahay miisaanka wax la xooluhuna urkeysku gartaan bini aadamkuna afka markuu hadlo wadiisa isku waa asaasi marka taa xoog leeyahay inaga luqadeena hadayna diiman oo priority-ga oo top ay naasiin misalan inanko hadda waa inankii dahab ku dhashay ku koray afigriisi ku hadlay aroorti 8 buu ka tagaa afartuu yimaada inta macallinku anu macallin baan ahay macallimiinta psychology-ga waxay rabaa ilmahan wadankan in la jeclaysiiyo wadankan luqadiisa historigiisa psychology-giisa anthropology-giisa u dhaqmo alla yiraahdo Africa very these people يعني all واي maxaynu taa hadaba kaga gudbaynaa inagoo dhibaata qabyaaladii jirto wadan burburanahay laakiin ogow laba wax bay namideeyeen rag badan oo weeyaan waxay namideeyeen diinta iyo afkeena afku culture-kii dhaqankii suuga waxa dhan soo gelaya hadda diinta culture-ka wanaagsan waa diinta waadadii baa fadhiyaan waadmiye nabi wuxuu yiri khayrukum fil jahiliya khayrukum fil islam wadikii dhaqanka ku dhaqmo oo jaahil markuu islaamo marka waxaan u daleeyahay af Soomaaligeena sidee bay inagu kii ka hadlay dadkaas afkooda waa isa xoogaa dawladnimada u jirta inaga markaynu Yurub joogno ama Sweden joogno ama aynu joogno France sidee bay afkeena u kobcinaa waa afkii waa la dagaalamaya waa afqaniya gabadha tan waxaan aad u amaanayaa de waa soo koobaya oo tataabanaya Zainab gabadha halka ku dhalatay oo ku kortay yani halkay ka fakarayso ka faraysa maawan jeeris iyo aflaantan baas oo mulxidiinta ah oo la doonayo ilmaheena oo aqli lahayn dadkeena maangaabka in loo macaaniyo guriga carruurta ma waysari maramiya say barnaamijka barbaari oo TV-yadeena internetkeena oo imaano
يعني أقونتها يعني وأقون بس وحوي psychologically سيدا بس كحدي الود لا يو إلا برباريو وقبلنا تيفي هذا ميل بدن برجع أنا واقعتي وأنا أركض الصبح أفكارنا أفكار سومالي نيو 2009 كا بعدين أفكار سومالي وأنا واحد شو هالكا اللي نبى نشوفه نين الله ونحاري سبعة محمد دافع وها نيكي أبو ري أفكوبلتك أكاديمية واقع سهل marka waxa la eegay afkii horta Soomaaliya maadaama lagu hadlaayo TV wali waa dawlad oo ka tarwasho oo ma jirto laakiin afkii waa ku jabaya waa ku sii dhimanaya qurba ay joogno anigu soo dhamaan macallin baan ahaa macallinkii afka Soomaaliga mii macallinkii bisari biology dhigay majorkayga ma dhigi jiray Soomaali baan dhigi jiray وشافي ميديا برودكشن وأكو فرحسن هاي إن أبو صوب بوقته أو صاحب لنا نقطة برامج هذا أنا لسه باهينه كمبلا الكفرة أو سبسكرايب كأنه صار أنا جنا وحشرف نوع أحمر البا لصعد خير جيت بالو فدي سنجري جيت بالو فدي